xildhibaan Axmed Nuur Kajaande oo ka tirsan golaha baarlamaanka Somaliland ahna gudoomiyaha hay'adda Hiil ee ka howlgasha degmadaasi Ceelaf Weyn isla markaasina cusbitaalka weyn ee degmadaasi Ceelaf Weyn ka kaalmaysa dhanka caafimaadka. Haddaba xildhibaan Axmed Cabdi Nuur Kajaande ayaa kormeer ku soo maray cusbitaalkaasi weyn iyo sida ay hawshiisa ay uga socoto, waxaana uu halkaasi kula kulmay mas'uuliyiinta cusbitaalkaasi weyn ee degmadaasi Ceelaf Weyn iyo waliba madaxda hay'adda Hiil ee gobolka Sanaag iyo sida ay u kaalmeeyaan dhanka caafimaadka degmadaasi Ceelaf Weyn. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxda cusbitaalkaasi weyn iyo waliba maamulaha caafimaadka shaqaalaha hay'addaasi Hiil ee gobolka Sanaag, waxaana hadaladoodii maanta aad noo jooga waxaan doonaynaa Ceelaf Weyn dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay. dhibaatooyinka ka dhacay waa hay'adda kaliya ee wax ka qabatay, iyadoo cayaaru socdaan waa hay'adda kaliya aan cidina aanay soo leexin. qalab badan baa ka dhiman. haddii magaaladu waa magaalada kaliya ee ugu baaxadda weyn Somaliland, 46 tuulo oo qaar ay yihiin degmooyin sida Hulul maadaama waa aragii ugu weynaa Somaliland aad tahay, maadaama labada jego ee macnaha Hiil iyo hay'adii macnaha baarlamaanka aad ka socotid indhahaaga inaad ku aragtid, caalamkana waa maqal iyo muuqaalba. waxaan kugu soo dhaweynaya bulshadeena caafimaadku waxa ugu horeeya ummada ka horumarto. marka waxaan aaminsanahay inaanu hayno shaqadii ugu cuslayd, inaanu dadka deegaanka u hayno runtii 3 sano in ku dhow ilaa 2016 ilaa maanta ayay shaqadan Hiil ay soo fulinaysay. marka laga yimaado AC-ga 2017 aynu isaga furnay. runtii waxa la gaadhay guulo fara badan iyo achievement badan. waxa intaasoo kun oo ciyaala ayaa laga sarfiif gareeyay. intan waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Axmed Cabdi Nuur Kajaande ayaa ka warbixiyay baahiyaadka caafimaadka iyo waxay ka geystaan iyo sida ay u taakuleeyaan cusbitaalkaasi. wasaaradda caafimaadka iyo mobile teamyada iyo haddii libadka leeyahay xarunta caafimaadka aad iyo aad baan idin salaamaya. mugti runtii soo dhaweystiinana waa ku mahadsanaya. hasaatee waa inaynu samaynaa sida aan uga maarmi lahayn in birito aynu inagu isu kabi lahayn isku shaqo. marka waxa weeye waxaas wax de baryada caynkaas ku yimaada wax badan de wax walba isu dhameeya lagama helo. mugti dunidaan isu dhameyn boo sagaala. marka waxa weeye wixii ay Hiilna wixii ay ka qaban karto ee haddii libadka leeyahay ay ku tari karto, mesela biyahaas oo kale iyo transportation-ka maxaan ku dhahay alaabta tuuliyaasha la geenayo, intaa waan isku daynaa inaanu maxaan ku dhahay wax ka qabanno. waa annaga dib isku noqonayna ka dhameynayna. de waxa weeye wixii kale ee hoose ee aynu maxaan ku dhahay war ka shiri doonaa oo ka qaban doonaa. laakiin arrinkan u kacay waxa weeye in maxaan ku dhahay aan idinka mahad celino in shaqada wanaagsan ay qabataan oo annana wixii deetaa kule iskii garab taagno sida hawsha gudan lahayn. dadka u shaqeynaysa waa dadkeennii, waa kiinii, waa magaalooyinkiinii, waa tuuliyaashiinii. waxa weeye ubadkii baa u shaqeynaysaa yaryara, islaan umula u shaqeynaysaan. de waxaa laydinka doonaya halkaa inaad kala sii dhawaataan oo aydaan ka ag dhaqaaqin oo maxaan ku dhahay halkaa ka soo xambaartaan oo keentaan magaalada oo u dhaxdaan oo u gaajootaan oo ya. markaa wasaaradda caafimaadkana maxaan ku dhahay haddii aad iyo aad bay u mahadsantahay iyada lafteedu. ugu dambeyntiina waxa uu xildhibaanku uu kormeer ku soo maray cusbitaalkaasi weyn isagoona mid u booqday xarumaha iyo waliba dadka bukaanjiifka ah ee ku jira cusbitaalkaasi. Axmed Maxamed Cilmi, On Cable TV, Ceelaf Weyn. محمد عبد البر برشتي.